iyo dagaal ba'an oo ka dhex socday Soomaaliya iyo Itoobiya aniga waxaan aaminsanahay in maaragtay ogaadeenku ay cadow koowaad ay yihiin kilka shanaad markii loo fiiriyo oo ayagu ay cadow ku yihiin inay Soomaalidu ay xoroobaan maaragtay ummadaha kale ay wax la qaybsadaan لأنه ogaadeenku waxay maaragtay magaci Soomaali galbeed ku bedeleen magacooda waxay ka dhigeen wadanka Ogaadeniya ya markii aan soo tiro koobay aan dhex galay oo aan soo xuraansaday beelaha degan kilka shanaad waxaan soo ogaaday ogaadeenku inay 20% ay ka yihiin dawlad deegaanka Soomaalida sida maaragtay beesha daarood ee isku waxaysiiyaan maaragtay inay Soomaali yihiin dadka ugu sanka dheer dadka ugu laan dheereysan dadka ugu maaragtay xukunka mudan dadka u hayleeysan sida ay afka noogu dhufteen oo maaragtay ay iska kaaya dhaadhiciyeen markii aan yaryarayn oo daaroodka ay dhahaan boqortooyada Soomaaliya waa daarood ninka Soomaaliya xukumo kara waa nin daarooda ninka Soomaaliya u san dheer waa nin daarooda sida ay iska kaaya dhaadhiciyeen hadda markii aaladaha cusub ee Facebook la helay ee warbaahinta la helay waxa soo baxday daaroodku inayna 20% ka ahayn Soomaaliya horta ah oo maaragtay magaalooyinkooda markii la soo tiro koobayna 100% maaragtay 20 ayna tiro koobka ayna ka ahayn magaalooyinka Soomaaliya ugu waaweyn shanta ugu horeysa waxa iskala beelaha Irir Soomaali Muqdisho laan Hargeysa laan Burco laan maaragtay Booramaland ya dhamaantood waa 1 2 3 iyo waliba Djibouti laan caasimadda dalka Djibouti oo Irir Soomaali ah ya beesha Irir Soomaali waxay ku jiraan marka la tiriyo magaalooyinka safka hore ganacsiga safka hore hantida safka hore adadka safka hore ku jiraan hadeertaan maaragtay markaan u soo galno kilka shanaad ee ogaadiyeenaya dhibaatada ka socota ee ogaadeenka la baxay kilka shanaad ee Oromo ay ku baabi'inayso Soomaali badan ee maaragtay ay ku laynayso waxa maaragtay meeshaas ka soo baxday beesha ogaadeen ku abtirsada inay afgambi ay ku haystaan